gudoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin cabdiqaadir cali obsiya ayaa u mahad celiyey kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin oo saaka goorrooba soo buuxdhaafiyey goobta loogu talagalay inuu ku soo bandhigo urur siyaasadeedka iftiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taageerayaashiisa waxaana uu mahad celiyey kumanaanka taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin ee isugu soo baxay goor horeba barxadda loogu talagalay in lagu soo bandhigo dadka madax taabashada ee urur siyaasadeedka iftiin cabdiqaadir cali obsiya gudoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin ayaa geesta kalena wuxuu u mahad celiyey guddida diiwaangelinta ururada qaranka jamhuuriyadda somalilan geesta kalena wuxuu ka dhawaajiyey qodobo lagu horumarinayo qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan gabagabeeyey hawshii iyo tartankii ololihii aynu ku jirnay ilaaha weyn ee waaxidka ah ee maamul awood iyo amarba iska leh ayaan u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa guddidii diiwaangelinta ururada iyo kala saarista asxaabta ee inta badan aan soo wada shaqaynaynay runtii dulqaadkooda iyo wada shaqayntoodaba lahaa ayaan aad iyo aad iyagana uga mahad celinayaa halkan sidii fiicnayd aan usoo wada shaqaynay ilaa boorame iyo maanta oo ay gabagabadii tahay laascaanood waa mahadsantiin baan leeyahay waxaan kaloo u mahad celinayaa shacab weynaha reer somalilan meel kastay joogaan yaryar waaweyn dhalinyaro haween dhammaan ee isbarbar taagay urur siyaasadeedka iftiin iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin siiba taageerayaasha urur siyaasadeedka iftiin waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkana jasaakum allahu khayra jasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo gabagabeeyey ololihii aynu inta badan ku soo jirnay waxaan imanka idin leeyahay haddaad tihiin dadyaga reer somalilan annaga waxaana wadaa waxa weeyaan waa qorshe siyaasadeedkayagaas waa fikir iyo qiira waxqabad oo ku saabsan waxaan aanu xambaarsannahay oo ah inaanu dalkayga iyo dadkayga diinteeda uga faa'iidino oo uu sanado yar waddanku ku noqdo barwaaqo sooran taasaana kalifaysa wallaahi baan ku dhaartay wax kale oo kalifaya inaana jirin urur iftiin la yiraahdo oo doonaya dadka ilaahay dartii inuu ugu shaqeeyo bilaa mushaharna ugu shaqeeyo waxna aan ka rabin magac iyo maal iyo masab ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu qulubtayada iyo qulubta muuminiinta iyo qulubta muslimiintaba inuu isu soo jeediyo walaalaysiyo